Waxaa jira in markasta oo qofka bini'aadamka ahi uu isbeddel iyo nolol horumar leh u diyaar garoobo inaanu waayin cadow ka badan cadowgiisii hore. Sidoo kale waxaa xaqiiqo ah inay kasoo horjeedsadaan dad badan, inay ku noqonayaan cadowgiisa, sidoo kale inay aaminayaan inuu iska kibrinayo. Maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan muhiimadda ay leedahay dhiirigelintu. Ku soo dhawaada channel-ka. Dhiirigelintu waa sida cuntadaas oo maskaxda qofka bani'aadamka ah la siinayo. Kagama dhergaysid dhiirigelinta hal sheeko iyo hal eray midna, balse waxaad kaga dhergaysaa inaad badiso dhegaysashada iyo daalacashada joogtada ah, amase inaad joogtayso akhrisashada buugaagta ka hadlaya dhiirigelinta iyo sheekooyinka dhiirigelinta ah. Sidoo kale waxaad kaga dhergaysaa inaad mar walba isku daydo naftaada inaad dhiirigeliso. Sidoo kale dhiirigelintu waa dhaqaajiyaha nafta, waana midka sabab u noqda inuu qofku qabto hawlo aad u sarreeya, gaadhsiiyana natiijo aad u weyn una ballaaran, waana furaha keena inuu qofku gaadho guulo isdaba joog ah. Sidoo kale waxaad ogtahay dhagaysta gaadhiguba inaanu socon karayn shidaal la'aan. Sidoo kale shidaalka qofka bini'aadamka ahi waa dhiirigelinta, amaba se dhaqaajiyaha ugu weyn ee qofka bini'aadamka ahi waa dhiirigelinta naftiisa. Sidoo kale waa dhiirigelinta joogtada ah ee mar walba naftiisa ku celcelinayo. Sidoo kale waxaa horumar weyn u keeni kara inuu mar walba isku dayo qabashada hawl aanu qaban karayn, hawshaasoo haba adkaato ilaa uu marka dambe si fiican u qabto. Waxaynu ognahay in mar walba oo aad shay ku celceliso, marka dambe si fiican aad u qabanayso shaygaas, amaba si isbeddel weyn uu kaga imanayo xaggiisa. Haddaba dhaqaajiyahaas waxaad ku heli kartaa adigoo naftaada tusiya aragti fiican, iyadoo dhiirigelinta ugu weynina ay tahay inaad naftaada dhiirigashato. Dhiirigelinta ugu weyn ee naftaada aad ku dhiirigelin karto waa inaad u dhisto riyooyin. Sidoo kale waa inaad u yeelato yoolal iyo qorshayaal isdaba jooga. Miyaadan isdhiirigelin karin? Haa, waad isdhiirigelin kartaa, weliba adigoo ku kalsoon Rabbigaaga iyo weliba naftaada. Waxyaabaha ugu waaweyn ee dhiirigelin ku heli kartid waa kalsoonida naftaada iyo inaad aaminto naftaada. Sidoo kalena aad lahaato aragti fog iyo yool aan ka soo noqosho lahayn. Dhiirigelinta naftu waa furaha guusha. Haddaba dhammaanteena waxaynu wada ognahay dhiirigelintu inay tahay shayga qura ee qofka bini'aadamka ahi uu kaga gudbi karo caqabadahaasoo ha ahaato caqabad kasta, amaba si kasta oo ay u adkaato, amaba si kastoo xal loogu waayo. Sidoo kale waxaad ogsoon tahay inayna jirin shay bilaa xal ah adduunkan, wax walbana xal inay leeyihiin. Haddaba sidaynu horeba uga soo hadalnay, dhiirigelintu waa shidaalka amaba se waa dhaqaajiyaha qofka bani'aadamka ah. Waxaa fiican mar walba dhiirigelinta koowaad ee naftaada inaad adigu lahaato. Sidoo kale inaad isku daydo qabashada waxyaabo aadan qaban karin. Ugu dambeyn, shaygaan kugula talinayo waa inaadan cabsan, sababtoo ah cabsidu waa guuldarrada koowaad. Sidoo kale cabsidu waa furaha guuldarrada, waana inaad noqoto dhaqaajiyaha koowaad ee naftaada. Sidoo kale waa inaad ahaato dhiirigeliyaha koowaad ee naftiisa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.